بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد سكال إله سبحانه وتعالى وأحسور قليها وحوليبا وحاها عبد الرحيم عمر عبد الرحيم أهنا قدوميها أورك رجال لنيرة الصوماليات كاسو كشقي أريمه برشة وحربنا إن برشة الصوماليات وصوب بندقنا مدام رمضان كوسود وياهاي إن نجلق بقاتان أفرنت ولا الله أنا أودين إن هلان أفر كفلان أما أفربا نسأل ساعتان وحكسو شقينا لابد سنة قدام بيسي إن هولا بدنا سواق وانا لكن رمضان كأفركي ساحوق سارنا نسق روح بدنا أسواق بصونتي هذا نورجينا أنا سيدي هريتي كمان أكسر نجلق بقاتان دمتان بإذن الله وحا هذا دحجوجنا كان ممكن أنك شقينا إن سيد حيتوانك كامها ولو كسو كردين عليكم السلام ولو كسو كردين كامم كلاته إلا حيتوان كام يجارين إنه كانوا لهين قيسس جارا إلا يكون قيس أنا أبهنا إن وضع أفرين دمان تودا وحبلش الصوماليات كعسلنا إن عريضة نجلق بقاتان كام كان أركيسان وبحد وينهين قيب كم إذا هذا جوجنا وحنا ربنا إن نجلق بقاتان أفركاس مالنكي لو بقولوا قيس وحلقوا أفرين كرنا إنه كتسال قادنا إنه عليكم السلام أنا كتسال قادنا إنه shaqooyinkii hore aan soo qabanay u tixraacayno 200 qoys waxa lagu afurin karaa $170 maalinkii halkii maalin ee Ramadaan waxa lagu afurin karaa qoysaskan ee kaamamkan degan 200 qoys waxa lagu afurin karaa $170 $170 soddonka bari ee Ramadaan hadii lagu dhufto waa $5,100 qof kasta oo naxariis leh oo damqasho leh oo dareen leh waxa ka codsanaynaa inuu nagala qayb qaato wuxuu awoodo haduu laba maalin qofka afurin karo haduu hal maalin afurin karo $170 على يعني قف halka qof $170 wuxuu ku afurin karaa 200 qoys isagoo labadaas 100 qoys ajarkooda helay kiisana gaarku u yahay warjeynayna inaan nagala qayb qaadan doontaan biidnillah ma sanadii أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد اسمه عبد الله محمد وعن كسرنا أورك رجال الهيرة الصوماليات وأنا أقدم كحيان أورك رجال الهيرة الصوماليات أورك سلقيسي وحقبت كيسي شقاد الله صلي وحواه العامات دنت كدندير يوعي قلنت الهيرة سيدا أوجد وحن صو شقاني شقادي أسوق وانا هاد مدو لوصل إنه جرس أورك وحيابي أسوق وانا هاد لوصل السنة سوقاتكي لوada sana ku soo marnay hadda waxaan ugu soo foolay bishii barakaysnada Ramadaan oo ahayd bishii barakada bishii Quraan akhriska bishii soonka aha waxa jiro dad dhigeena oo kala ah oo danyar ah oo ku duruufaysan dhamaan daafaha magaalada Muqdisho ku sugan waxa hadda ku suganahay oo aan taaganahay waxa deegaanka Tareedisho oo aan dowladka magaalada Muqdisho qayb ka mid ah waxaan bishii barakaysnaa ugu soo falay waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaadataan inagoo ah ururka rajada Soomaaliyeed afurinta walaalahan taasoo daashay duruufaha qarsoon iska daa Ramadaanka ee nolol maalmeedkooda caadiga ah xitaa la sida u jeedaan oo garbaheena aad ugu muuqataan oo intana u jeedaan guryahoodii iyo meesha aan taaganahay ee taa qoys kamid ah meel u degan yahay bacaadka sicilada ee seexdaan adigana fiirsanayo muuqaalkan arkaayo ma jeclaale maanta bacaad seexato waxa laga yaabaa in dad nolol kale ku jiraan aanan ogeyn aan ka warheenin kaliya intaan kaliya ma ahan oo waxay ku hareeraysan magaalada Muqdisho oo dhan intaas oo muslimiin ah intaas oo dad ah oo aan joogan caasimada dalka qeybadeeda kala duwan iyagoo ku nool xaaladan aad arkaysaan u jeedaan dharkoodii meesha yaalo meesha ay seexanaan bacaadkaas ay tahay sakeelkaas biyaha uu yahay haddana nagu soo fadhiyo bishii barakaysnada Ramadaan oo ay leeyihiin wax ay ku afuran nolol maalmeedkoodii xitaa la hooy la meel ay seexdaan la damqasho iyo dareen iyo naxariis waxa aan ugu shaqeynaa ay tahay ama aan ugu socono ama inta uu imaanaa intaagan ay tahay إلى القرآن كسوع كشيء يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تاسو آيات معنى هذا إن صون كهراء إن صون ضد كنوري الواجب يلسا أنا كان هذا الواجب إنه قطع إن صونه بشخص بركيسون نوي إنه بتقولين حريص كل كيس أتوه شيء متكون ضخ بحياها إنه وما كان أجود ما يكون الناس في رمضان
bish Ramadan wuxuu ahaa kareexil mursal si dabal dhabanas dabeesha duufaanteed ma celin karo sidaas oo kale nabiga maxamed wuxuu ahaa midka ugu deeq bixiya badan bisha barakasnad Ramadan waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaadataan afurinta walaaleen oo nagu soo fadli bishii barakasnad waxaad baxsato biree ka horeynaysa waxa la isku leeyahay waa adduunyadina maanta inta wax la isku tari karo wax tarkeena dhamaan shacbiga Soomaaliyeed qof walba oo fiidiyoga arkaya fariinta arkaya waxaan ka codsanaynaa annagoo dhamaan ururka rajada dhalinyarada Soomaaliyeed inay nagala qayb qaadaan afurinta walaaleen oo maasantiin maadaama aan 2 sano aan soo shaqeynay waxyaabo badan oo caqabad ah iyo waxyaabo badan oo khibradna aan ka soo heysano hanaankii lacagta loo manage gareyn lahaa iyo wixii la halmaalo 200 oo qoys waxa la afurin karto hal maalin $170 $170 aad bixiso waxaad ku heli kartaa 200 oo qoys ajirkooda qoysna waa dareemi kartaa qoys markii la leeyahay qof ma aha waa hooyo iyo aabe iyo caruurtooda marka $340 hadaa bixiso waxay la mid tahay adoo afuriyay 2 maalin 400 oo qoys marka fadlan ka qayb qaado waxaad awoodo kaga qayb qaado biidnillah warajeynaa inaad nagala qayb qaadan doontaan